George Tawlon Mane Obon Usman weeha waxa uu ku dhashay magaalada Monrovia ee dalka Liberia sanadkii 1966 waxa uu ka soo jeedaa qoomiyadda la yiraahdo Kru oo degta dhulka loo yaqaano Kru County oo ah deegaanka ugu saboolsan guud ahaan Liberia aabihii waxa uu ahaa farsamo yaqaan gaadiidka cilad saara halka hooyadiina ay ahayd ganacsato waxa uu ka baxay dugsi ay lahaayeen ururka muslimiinta ee Liberia ee loo yaqaano Muslim Congress laakiin waxa noloshiisa oo dhan saameeyay oo qaabeeyayna jacaylka uu qabay kubadda cagta oo ku bilaabay markii daadiisu ay ahayd 15 jir isagoo u saftay naadiye ka jira dalkiisa kadib markii uu wacdara ka dhigay horyaalka koowaad ee Liberia ayaa waxa xifradiisa uu qushuucay tababaro u dhashay dalka Cameroon oo loo oran jiray Claude de Roy kadibna waxa uu xogta laacibkani la wadaagay tababaraha Faransiiska ee caanka ah Arsène Wenger oo sanadkii 1988 geeyay kooxda Monaco ee ka dhisan Faransiiska oo tababaro u ahaa sanadkii 1989 waxa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu fiicnaa Afrika guushaasina waxa looga dabaaldegay Liberia kooxda Monaco ayaa waxa uu la qaaday koobab uu ka mid yahay horyaalka Faransiiska sanadkii 1991 kadibna waxa uu wareegay kooxda kale Faransiiska ee PSG oo uu la joogay intii u dhaxaysay sanadii 1992 ilaa 1995 oo uu kula guuleystay koobab badan laakiin waxa uu magaciisu kor u kacay sanadkii 1995 markii uu ku biiray naadiga Talyaaniga ee AC Milan oo uu la qaaday horyaalka dalkaasi ee Liga Calcio isla sanadkaasi waxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo FIFA ay u aqoonsadeen laacibkii ugu wanaagsanaa caalamka ilaa haddana waxa weeye ciyaaryahanka kaliya Afrikaana ee haysta abaalmarintaasi Milan waxa waqtigaasi tababaro u ahaa Fabio Capello waxana uu George Weah ka garab saftay laacibkii caanka ahaa ee Talyaaniga ee Roberto Baggio markii dambe waxa uu u ciyaaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City oo ka dhisan dalka Ingiriiska kubadda cagtana waxa uu macasalaameeyay sanadku marka uu ahaa 2003 xulkiisa Liberia ayaa waxa uu geliyay dadaal badan waxana uu soo saaray koobka qaramada qaaradda Afrika FIFA waxay u aqoonsan tahay wali inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Afrika qarnigii aynu soo dhaafnay ee 20aad George Weah waxa uu leeyahay taariikh kale oo saameyn leh markii uu yaray ardayga uu ahaa ayaa waxa uu awoodi waayay inuu iska bixiyo lacag uu ku dhigan lahaa dugsiga laakiin wiil ay saaxiib ahaayeen oo isku arday ahaayeen oo muslim ahaa ayaa waxa uu ku qanciyay inuu ku biiro dugsi ay aasaaseen muslimiinta Liberia oo lagu baran jiray luqadaha Ingiriisiga iyo Carabiga ninkaasi ay saaxiibka ahaayeen intaasi kagama hadhin ee waxa uu ka dhaadhiciyay bal inuu barto diinta Islaamka kadibna uu ku biiro George Weah waxa uu arintaasi kala tashaday ayeedii oo soo korisay oo ahayd masiixiyad laakiin waxay u sheegtay inuu jiro ilaah kaliya oo la caabudo haddii muslim uu noqdana aanay jirin wax dhib ahi sanadkii 1989 isagoo ah ciyaartoy caan oo u safta kooxda Monaco ee dalka Faransiiska ayuu galay diinta Islaamka waxana uu ku jiray muddo 10 sano ahayd oo ku eekayd ilaa sanadkii 1999 markaas oo ay geeriyootay ayeedii waxana uu sheegay in diinta masiixiga inuu dib ugu noqdo inay sabab u ahayd ayeedii oo aad u jeclaa uu doonayana inuu rumeeyo diintii ay aaminsanayd sanadkii 2005 ayaa waxa galay damac siyaasadeed isagoo iska sharaxay xisbiga Congress for Democratic Change CDC laakiin waxa ka guuleysatay Ellen Johnson Sirleaf oo ahayd khabiir ka soo shaqaysay baanka adduunka noqotayna gabadhii ugu horeysay Afrika ee madaxweyne loo doorto weeho markale madaxweyne ku xigeen uga sharaxan xisbiga CDC iyo saaxiibkii Winston Tubman oo jagada madaxweynenimo u sharaxna ayaa waxa ka guuleysatay Mrs Sirleaf
sanadkii 2004 ayaa waxa uu ku guuleystay kursiga aqalka sare baarlamaanka ee laga soo doorto degmada Monsaredo. waxa fursadii iridiisa ay soo garaacday sanadkii 2017 markaas oo uu qiimeeyay doorashadii Liberia ka dhacaysay, waxaana tartan uu ku wajahay madaxweyne ku-xigeenkii dalka oo ahaa murashax lana yiraahdo Joseph Boakai oo kaga adkaaday doorashadii dhacday sanadkaasi. ilaa haddana waxa weeye madaxweynaha dalka Liberia wiil uu dhalay oo la yiraahdo Timothy Webb oo ku dhashay kuna barbaaray dalka Mareykanka ayaa si la mid ah isaga aan u safan dalkiisa Liberia, waxaana koobkii adduunka ee ugu dambeeyay sanadkii 2022 lagu qabtay dalka Qatar uu u ciyaaray xulka qaranka ee Mareykanka. hase ahaatee arrinta la yaabka noqotay waxay ahayd markii George Weah uu duulay wadanka Qatar si uu u daawado wiilkiisa oo u ciyaarayay Mareykanka, taasoo su'aalo ka dhalisay gudaha dalka Liberia. macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xad lahayn fadlan ku shubo 4,000 shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afar gees dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga. Somtel waa shirkadda dadweynaha.